ku noqoto badanaa aniga drama iyo waxaas iska daba wareegaas ma aqaano cause already saameyntaydu macno badan bay dad badan u samaynaysaa uma baahna inaan viewers raadiyo aan maaragtay maanta dhan dadaal badan geliyo 18 video iyo YouTube iyo waxaas inaan soo geliyo maanta dhan aan qof uga hadlayo wariyay dhalaatay wariyay sidan baa tahay ma لكن waxaan rabnaa fikir to fikir okay let's listen so meel waxa jirtay uu ka dhawaajiyo dhahay ninkan fikrado laakiin hogaamiyihiisa fikrada dumarku noqday markii hore wuxuu ahaa gudoomiyaha quruxda ragga Soomaaliyeed wuxuu dhahay aniga waa quruxsanahay ninkan xaliya la dhahaa laakiin waxaan u bixiyay master folxumo maxaa la dhahaa 3 nin oo gadaal ka qoslana u soo watay life afkayga soo socda waxaan soo wadanayaa 4 nin oo gadaal iga qosla wax yariisa markaan hadlo in la qoslaan rabaa please wax yariisa markaan hadlo in la qoslaan rabaa okay dhegeysa meesha dhegeysa meesha ayaa meesha fadhiga sidaan kuu sheegay barnaamijyadiisa run fara badan ayaa ku jirta laakiin de ma jirto it is what it is waa inaad runta qaadatid iyo inaadan qaadanin don't be emotional brother hogaamiyahaaga haddaad ogtahay inuu runta sheego waa inaad raacdaa kam ardaydeeda ka mid noqo coachinaan ku siinaya oo ku caawina for free ma jirto oo run badan buu sheegaa laakiin there is no laakiin it's either inaad run sheegtid iyo inaad been sheegtid it's either inaad daalan tahay iyo inaadan daalanayn uma baahnid inaad listen maxamed abdullahi xasan baa wuxuu dhahay ilaa naxariistay ama af gaala aan kugu imaada ama af islaam wuxuu ka wadayna waxay ahayd ha ama maya mid ha lagaa helo xaliya wuu run badan yahay okay hogaamiyahaaga waaye laakiin taas waa emotionalkaaga waay laakiin taas waa qiira jabaantaad ku nooshahay nin ahaan waxa waaye waa ma rabtid inaad qiratid inaad daalan tahay oo ay kaa taalo yani it's okay inay kaa taalan nin ahaan oo aadan aqoon badan lahayn waxyaaba badanna fahansanayn okay ma xuma dhegeysa meeshan midaan ku taageerayni waxay tahay xaliye horta number 1 dumarka garoobadana wuxuu ku sheegaa garoob daalan kuwa gabdhahana wuxuu ku sheegaa shuubo okay taas fikirkayga waaye inaan naag garoob ku sheego way daalan tahay waa fikirkayga aniga ii khaaska waxaad ka bedelaysaa ma jirto wax ma aha oo adiga aad u baahan tahay comment inaad ka dhiibtid oo dumarka garoobka daalan no waxaad dhahdaa maadaama aniga ahaantayda nin daalan ahaan anaa garooboo daalan soo watay ay iga daadsatay publicly maaha privately maaha publicly soomaalidoo dhan iyagoo ka warhayso aniga layga daadsaday platform ay samaysatay xariif kale oo adiga social mediaha kugula jira aaday intaasoo dhanna ay garoob ahayd sidaa daraaddeed ba waxaad iska dhigaysaa nin garoobyada u hiilinaya ama nin garoobyada difaacaya laakiin waxaad rabtaa oo inaad ku qarisid pointka ah aniga waxa ii gambisay naag garoob ah oo daalan xaliyana wuxuu dhahaa naagaha garoobkaa way daalan yihiin yes because of lama macaamilo garoobyada aniga shakhsiyadayda aniga maxaa la dhihi jiray nin ahaantayda waa fikirkayga anigu maskaxdaydaan ka hadlaa uma imaado inta inaan cidna ku qanciyo inaan maxaa la dhihi jiray dadka u madax salaxano it's either inaad qaadatid runta iyo siday waxu jiraan iyo inaadan qaadan waxbana kama dhexeeyaan sidaa daraaddeed baan u ahay ninka ugu saamaynta badan soomaalida hadda nool oo aad adigu xataa iga hadlayso laakiin keliya su-aasheedu waxay tahay way u samaynaysaa waxaanoo munaafaqnimo ah way iskaga dhigaysaa nin naagaha difaacaya adoo og 100% inaadan shaxda naagaha fahansanayn maybe naagaha soo socda xataa ay kaa daadsan doonaan raggaan maxaa la dhihi jiray maalin kasta god intay ka baxaan god kale ku dhacaan aad ku jirtid waayo sidaad u hadlayso iyo qaabkaad u hadlaysaan ka fahmayaa
inaadan ahayn nin ahaan raba inuu wax barto wax fahmo barnaamijkan waxaan u sameeyana waxaa waaye inaan ragga wax ku baro adigana aad ku jirtid kuma dhahayo oo aniga adiga isku fahma no aniga hogaamiyahaagan ah very simple aniga hogaamiyahaagan ah aniga adiga isku ma nihin isku level ma nihin hogaamiyahaagan ahay sida kaliya aad ku survive garayn karta markay imaato shaxda naagaha iyo fahamkooda iyo la macaamilkoodana waa inaad ardayda ka mid noqotid ma aha inaad soo istaagtid wuu saxsan yahay laakiin muxuu garoobyada uga hadlaya wuxuu ku sheegay garoobyadu inay daalan yihiin because of adaa mid ka mida garoobyada daalan uu soo watay markaasay ku siisay so you see like emotionkaaga iyo maxaa la dhihi jiray qiirooyinkaaga kugu jira bay ka mid tahay bay ka mid tahay inaadan la garoob marka laga hadla xataa gaasku uu soo kacayo garoob waa la aaday laakiin maxay kula joogi weysay ma fahmin laba beri kadib xarfaan kalaa wadwata naagtiisa say waxu jiraan dee waxbaa khaldan dee waa lagu isticmaalay adiga waa lagu isticmaalay qira brada it's okay way dhacdaa kulligeen jab waan soo wada marnaa laakiin ninka ugu daran waxaa waaye ninka aan qiranin ee difaac ku jira Soomaaliyeey anigu kama hadlayo gabadhaan kala tagnay war maydan kala tegin way ku gambisay take your fat el brother ma aha mana aha inaan kugu shidanahay kaliya waxaan rabaa inaan wax ku baro waana qayb ka mida waxbarashadeeda iyo maxaa la dhihi jiray sidaan ragga wax u baro inaan isla fahanno nin ahaan haddaad loosgarayso ha is adkaynin take your l sii soco maaha brada waa lay gambiyey dhibaata ma jirto brada laakiin hadda wixii ka dambeeya waan isu soo adkaynayaa gamekeyga kor baan u qaadayaa shaxdeeda kor baan u qaadayaa qaabka loo hadlo kor baan u qaadayaa I think videoga la isoo diray dhowr 20 daqiiqo ahaa hal point baan ka fahmay oo ahayd anigu waxaan ahay nin qurux badan waa hogaamiyaha quruxda ragga Soomaaliyeed uu quruxsan yahay ninkan so wuxuu dhahay aniga xaliyaniyo nin fool xun waaye please I don't have a problem foolxumada laakiin waxay tahay su'aasheedu ma fahansan tahay sida loo qiimeeyo ragga iyo naagaha ninka ragga maxaa lagu qiimeeyaa oo qiimihiisu ku xidhan yahay naagtase maxaa qiimiheedu ku xidhan yahay waa mawduuca barnaamijka waaye aan idinla wadaagayo kaliya waxaan rabay videogaan idin noqdo iftiimis sida rag badan oo daanyaro ah ay maaragtay fariinta iskaga indhatirayaan welina ay godad u gelayaan adoo fariinta iska indha adeegaya inaad tahay daanyeer baa lagugu yaacayaa kadib waxaad bilaabaysaa inaad noqotid nin u dooda xuquuqda naagaha jooji waxaas jooji brother ma fiicna kaliya ujeedka barnaamijkan waa wacyigelin waxbarasho iyo baraarujin dhinac kasta oo barnaamijka ku saabsan yahay maaha jawaab iyo qof daraama naga dhaxayso because ma naqaana at the end of the day laakiin waa fikir to fikir waa okay fikir to fikir waa shakhsiyad ahaantiisa qofkan ma aqaano laakiin sheekooyinkan oo dhan public bay yaalaan sheekooyinkan oo dhan wax qarsoon ma aha okay sheekooyinkan naagdaala ninkaana ka tagtay garooba ciyaal wadatay ku yaacday maxaa la dhihi jiray isaga shaxda uusan fahansanayn meesha ka ooyay Soomaaliye aniga waan afgobaadsanaya waxyaabahaas oo dhan public waay all the videos public waay wax aniga aan samaystay maaha wax aniga aan dagaal ama wax ku abuuraya maaha laakiin markaad iska indhatirto fariinta godad badan baad gelaysaa arrinta kale aan rabana waxaa waaye niyahow rag badan ha bartaan sida loo hadlo okay rag badan ha bartaan sida loo hadlo communication skillskaaga afka markaad kala qaado waa muhiim waxa afkaaga ka soo baxaya inay macno samaynayaan inay point ku socdaan in waxa la fahmi karaya aad ka hadlaysid 20 daqiiqo video ka badan oo xaliya aad uga hadlaysid oo hal point aan ka fahmay brada ilaahay ku dhaashay miyaan khasaaro ahayn waxaan ka fahmay laba shay wax taandho labada shay aan ka fahmay waxa waaye rag isagoo kala oo daalan oo gadaal
daaha gadaashiisa la soo fadhiisay waad ii qoslaysaan idinka okay marka ninkan wuu foolxun yahay maxaa dhahday wuu foolxun yahay isla kacda qosolka waa la qasbayaa like come on like effects baa la isticmaalayaa sound effects baa la isticmaalayaa brother kaliisi aniga laga hadlo so hogaamiyaha saamayntiisa waad dareemaysaan and laakiin waxaan dhihi lahaa un waxaa iska indha tiri fariinta haddaad daalan tahay waa daalan tahay wax laga qaban kara ma jirto qaado khasaarahaaga qaado maxaa la dhihi jiray jabka waa rag baynu nahay waynu u simannahay laakiin brother waxyaaba faniya ma jiraan bilaah ku dhaashay meeshaan wax faniya miyaa ku jira ani waan ku wareeray brother meeshaan wax faniya maa ku jiro mise anaa u maleeya kuma jiraan wax faniya dhegeysa meeshaan maadaama dumarka inta badan aad ku sheegto shuubo daalan shabuuto daalan garoob daalan adigu inaad tahay marka muuqaal ahaan sasee tahay waxaan leeyahay adiga kiristaanada ma tiida lacagkaa ma muuqato jir dhisan iyo shirnaantaas weynkaa ma muuqato ninka dhahayo dadka weydaaniin madaxa waxaa soo dhigaysaa intaas leeg ookiyaal waxaa soo dhigaya intaas leeg indho ma jiraan jir ma jiro dhisan waa isku dhexdhacsan tahay meelaa marka waxaa la soo fadhisaa garoob daalan belo daalan okay so pointka waxaa waaye this guy wuxuu aaminsan yahay qiimaha ninka raggaa inuu ku xidhan yahay sida uu eg yahay waana mawduuca barnaamijka muxuu yahay farqiga u dhexeeya sida ninka lagu qiimeeyo iyo sida naagta lagu qiimeeyo markay imaato qaabka loo eegyahay waxyaabahaas madaxaygu siduu yahay waxyaabahaas that's too personal mana rabo the same way sida emotional comment u bixiyo laakiin isla fahano communicationka ever waay waxba kaama fahmin macalinkaagana waa diiday inaad wax ka baratid keliya waxay imaatay un hadda waxay iskugu soo biyo shubatay xataa fikir maaha waa ninkan siduu u egyahay ma aragteen ninkan siduu u egyahay ninkan ma aragteen awkeelayaal waaweyn buu wataa waraa daayeerada caadi ma aha yes man caadiya ninkan ku hareeraysan ninkan caadiga waalayaan trust me caadiga waalay adi fiiri meesha waxa lagu qoslaya mataqaanaa nin isagoo sidaa u fool xun buu rabaa inuu dhaho naagaha waad fool xun tahay madaxaaga fiiri wix ciyaalnimada waaga ciyaalka hadida madaxaaga fiiri waryaa wallaahi waa runtiis markaasuu sii soconaya like wax faniya ma jirto qaab communication loo sameeyo ama qaab loo hadlo oo macno leh ma jiro meeshan ma taqaanid sida loo hadlo that's sida caadiga markay imaato sida aan u ekahayna aan ka bilowno adiga sidaad u eg tahay hadday macno samaynayso oo adiga nin quruxsan aad ahaydba ama aad tahayba xaliye waa master folxume laakiin maxay garoobta kuugu gambisay adoo quruxsan guddoomiyaha quruxda ragga soomaaliyeed why like haddii ay yihiin waxa lagugu qiimeeyo waan fahmi karaa sababtay naagtu tagtay waan fahmi karayaa sababta ay naagtaasi u tagtay at this level brother this guy wuxuu ku nool yahay adduunyo kale wuxuu aaminsan yahay siduu u eg yahay in lagu rabo sheekadaa madaxa iyo waxyaabahaasa soo xasuustay moogtahay adaa idin sheegaya insecurity badan baan ka dhex akhrisanayaa xalli ahaan markay imaato fahankayga psychologyga iyo neuroscience-ka iyo dadka maskaxdooda siday u shaqayso markaan fiiriyo qofku marka waxaa la dhahaa maad maqashaan mala qof intuusan intaa tuug dhihin buu tuug ku dhahaa waana waxaa waaye insecurity-ga waxaa lagu qariyaa difaac baa lagu qariyaa ammaandarada hoose ku haysata difaac baa lagu qariyaa haddii ammaandaro kaa haysato sidaad u eg tahay markasta waxaad ka hadlaysaa dadka siday u eg yihiin oo qofkaas uu fool xun yahay qofkaas waxaa waaye wallaahi bilaatintiisa way adag tahay laakiin hal waxaan isweydiino adoo nina maxaad jilciso u marsanaysaa
adoo nina oo aad og tahay in tintaadu adag tahay maxaad jilciso iyo madoobayso u marinaysaa tinta cabsi intee leeg baad ka qabtaa ammaan darre intee leeg baad ka qabtaa sida aad u eg tahay waxaan xanuun waayo goonidiisa u baahan in looga hadlo laakiin keligiis maaha wuxuu tusaale cad u yahay rag badan oo cabsi ka qaba sida ay u eg yihiin una maleeya in sida uu u eg yahay ay naaguhu ku qaadanayaan ama ay macno u samaynayso that's why maxaa la dhihi jiray ii sheeg maaragtay tintii loo jilicsaa la marinayaa waxaa la marinayaa maxaa la dhihi jiray garhka daawo miyadan arkin ilmo badan oo daawooyinkan garhka lagu soo bixiya gadanaya mataqaanaa sababtay u samaynayaan waxaa laga dhaadhiciyey ideology ah naagaha waxay rabaan ragga garh kale wuu qasbayaa so this guy wuxuu samaynaya waxaa waaye waxa la dhaho psychologyga projecting insecurity cabsi ammaan darro oo hoose oo isaga shakhsiyaddiisa iyo sida uu eeg yahay ka hadlaysa okay ayuu wuxuu samaynayaa difaac buu gelayaa so wuxuu leeyahay oh this guy is weegi xaliya meedan arkin madaxiisa bat madaxaygu caadi waaye public waaye madaxaygu xataa koofi ma saarna okay oh ninkan galaasyuu xiran yahay galaasyada way muuqdaan waxaan qariyey ma aha like waa la arkaa what's the big deal oo aad ka hadlaysid mawduucu muxuu yahay and the same guy ka hadlaya nin foolxun iyo nin quruxsan madoobaysaa tinta u marsan jilcisaa u marsan tintiisa adagu ku qanci waayey mana aha inaan isaga shakhsiyad ahaan tintiisa adagu uga hadlayo laakiin nin tin jilcisa mariya basically tintiisa way adkayd so ma qaada nin aqbalaad ah war tintaydu way adag tahay tintayda weligay wax ma marin u taale hadday hal xabood tinay igu soo harto wejigayga iyo madaxaygu way isu ekaanayaan okay arrinta kale egtaa kasii dara waxaa ka mid ah xilliga uu videoga duubaya habeen waayaan u malaynayaa glasses baa habeen la qabaa sunglasses okay kuwan sunglasses maahaya aan isla fahano okay kuwan sunglasses maaha okay sunglasses waa kuwa qoraxda la iskaga celiyo you get it sunglasseska qoraxda la iskaga celiyo so waxaan isla fahmaynaa mawduucuna uu ku biyo shubanayaa okay wax faniya ma jirto oo meesha uu ku sheegay number 1 number 2 cabsi iyo insecurity ninkan hogaamiyaha ka hadlayay aniga okay aan ku hayn laga hadlo laakiin waxaan rabaa un kaliya inaan rag badan oo dhalinyaro ah oo laba xaniilayaal ah aysan lumin baan rabaa oo ay fahmaan shaxda sida aad u eg tahay iyo inaad nin quruxsan tahay inaad nin fool xun tahay hadday macno keenayso adigu aad ahayd nin fool xun ama nin quruxsan let's say adhano nin quruxsan tusaale cad baad u tahay rag badan oo Soomaaliyeed barnaamijkaygana sababtan badanaa tusaalaha markaan isticmaalayo ninkaas oo kale aan ugu isticmaalayo waxaa waaye waa waxa ay fahmi karaan Soomaalidu ee muuqata waaye wax maaha emotional wax maaha waan isnaqaanaa waan iska qabsanaynaa waan kusoo jawaabaya waa isoo jawaabaysaa no I don't do that shit but kaliya waxaan rabaa inaan isla fahano haddii quruxdiisu ninkan wax tarayso waay qoftii garoobka ahayd ay uga tagtay haddii sida aad u eg tahay nin ahaan la qiimeeyo maxaa adiga adoo aaminsan inaad quruxsan tahay tintii adkayd marinaya madoobayso waxyaabo badan isku dardaraya aad like aad still maxaa la dhihi jiray lagugu gambiyey weliba sida lagugu gambiyey maaha si private ah oo private hadda right now naagtaan furay naagta iga tagta naagta ma ogid hadda aniga ma ogid waxayga right information ma haysid right laakiin waxaa jirta waxay tahay why adiga si publiga okay ay maxaa la dhihi jiray kaaga tagtay naagtii garoobta ahayd anigoo 100% aaminsan nin ahaan bilowga markaad naag bilaabaysid inaad alaab fresh heli karaysid laakiin alaabta freshka wadada lagu helo waxyaabo badan oo la isku dardaray waaye kuma dhihin weligaa si aad alaab fresh u heshid niyahow tinta madoobayso marso tinta jilci kadibna wax aan fani ahayn ku qosol maxaa dhahday ninka uu foolxuya that's brother حتى
ma isticmaali karayo tusaalaha sida uu daalaya ninkan laakiin kaliya waxaan rabnaa inaan isla fahanno haddii quruxdaadu macna samaynayso nin ahaan maxay naagtii iyaduba daalanayd waayo naagta dadaan qiimeeyo oo maxaa la jiray I think naagta oo isaga sooy ku dhahday naagtiisa ka tagtay waa arkay muuqaala ay leedahay laakiin waxaan u malaynayaa 10kiiba 10 waa naag afar waaye waa afar mise waa 3 qiimeynteedu okay 10kiiba 10 waa afar naag afar waaye ma hataa naag la dhaho wow wallahi naagtan way kala no makeup-ka iyo filterka iyo waxaasoo dhan marka la iska dhigo 3 waaye 3 waaye makeup-ka iyo filterka haddii loogu daro waa 4 10kiiba waa 4 okay 10kiiba waa 4 waaye qiimaheeda okay okay laba dheh hataa 4 aan dhahno okay ama 3 dhahno so waxay tahay su-aashaydu marka naag afara 10kiiba naag afara oo ciyaal soo dhashay niman hore soo qabeen waxaasoo dhan adiga markaad qaadatay xataa haddii quruxdaadu macno u samaynaysa iyada maxay kaaga tagtay that's point number 1 number 2 nin ahaan qaabka aad isu aragto waxaa waaye in adiga sidaad u eg tahay in naagu kugu rabto even xataa youtube-ka aad reactionska iyo waxyaabaha daaldaalan ku samaysid contentigiisa aad u daalan yahay waayo waxaanoo midhan waaye dee I don't know dadka dhegaystaniyo waa qosol caadi oo beenaa la suubinaya you know just wax funny ahaynaa funny laga dhigayaa waa just you know too much munaafaqnimo waaye so xataa channelkan adigoo haysta xataa channelkan adigoo haysta laakiin 1 milyan inta active-ka aad loo yaryihiin because of the content-iga meesha la soo geliyay waxyaabahaas oo dhan haddii ay xataa taasi ma kuu celin weysay like ninkan dad badan baa ku xidhan youtube channel buu leeyahay maxaa la dhihi jiray still iyagoo aragta waxaasoo dhan still iyagoo aragta tintaad jilcisada marinaysay 24 saac bay kuu gambisay siday kuugu gambisayna maaha si anigu aan private u ogaa waa si publica oo qof kasta soomaaliya ogaa videoyadana ay bannaanka yaalaan right markii adiga kuu gambisay xarfaanka ay aaday nin adigoo kala waaye okay laakiin maxay isaga u aaday you know waa inaan u fakarno si loojiga oo aysan ahayn maxaa la dhihi jiray emotional ama you know waan ku jawaabaya waan sacaynaynaa because maba dhaqaana at the end of the day laakiin xarfaankan ay aaday maxay u aaday okay and still intay social media ha imaatay ay adiga kuu sheenaysay waa mid ka mid a calaamadaha weak man inaad tahay very weak brother very weak arrinta kale cabsi intee leeg baad ka qabtaa sida aad u eg tahay heer aad habeenkii sunglasses isticmaalaysid heer habeenkii aad cumaamad isticmaalaysid naagaa waxay dhahaan markay shaawarka gelayaan madaxayga daraad baan dhaqay inuu iga qoyo ma rabo marka waxay ku xidhaan bahal yaroo bacay ku xidhaan ino madaxu inuu iga qoyo ma rabo marka why like why you know arrinta kalena waxaa waaye haddii pointskaaga iyo waxyaabaha aad sheegaysid dadka la soo hor fadhiisanaysid ee ku saabsan barnaamijkayga ama ku saabsan aniga xalli ahaan ay macna samaynayaan maxaad ugu baahan tahay 4 nin 4 inay soo fadhiistaan kaamarada gadaashiisa oo qosol beena ku camiraan hadda niyo rag iyo qoslaha lay keena niyo rag iyo qoslaha lay keeno like way ugu baahan tahay haddaad rabtid inaad point samaysid ama aad rabtid inaad samaysid maxaa la dhihi jiray qodob macna inaad u yeeshid maxaad ugu baahan tahay dadku u qoslaa bal meesha dhegaysaya adiga naftiisa ugu yeeraa xaliye aad u jecel dadku inay yidhahdaan baaba xaliye balse anigu hadda arrinta kalena qof markaad rabtid inaad ogaatid nin inuu emotional yahay hadduu warka wuxuu ka bilaabayaa ninkan waxaa la dhahaa xaliye laakiin anigu waxaan ugu wacayaa dee waxaad igu wacdaa it doesn't matter brother why ugu baahanta inaad wax igu wacdid you already know my name the name is too big brother to handle the name is too big brother macallinka magaciisa xaliye waaya period
ku dari karta waxaa ka mid ah Dr. Xaliye Cali waxaa ka mid ah Papi Xaliyena anigu iskuguma waco naagaha igu waca Papa maaha okay waa Papi Xaliye naagaha daadoodu 20 ka yar tahay igu waca ee freshka xataa gorob uma ogoli inay igu wacdo magacaas nin raga uma ogoli inuu Papa Xaliye igu waco no I'm not your father no brother so emotional markaa tahay waxaad bilaabaysaa ninkan waxaan u bixinayaa magac la dhaho the ugly what dhegeysa meeshaan doono magaca the ugly man arag meesha adi ilaahan kugu dhaarshay wax fani maa jiro markaadan qodobkaaga banaanka si toos u keeni karaynin communicationkaagana aad aqoonin iyo qaabka loo hadlo waad hadli karaysaa hal waxna lagama fahmayo midan weli arkin so kaliya waxaan rabaa mawduucan inuu tusaale ninkan u yahay rag badan oo aaminsan in siday u eg yihiin lagu qiimeeyo mawduuca barnaamijkuna waxa uu yahay maxay yihiin farqiga u dhexeeya naagaha sida loo qiimeeyo iyo adiga nahaan sida lagu qiimeeyo okay sida aad u eg tahay saameyn intee leeg bay ku leedahay qiimahaaga okay أنا أسلف أنا رجالي so نكان تسألوا برنامج كوي هاي كلية ونستعمله إن تسأله أهان ما ها واحد محل ديجري إن أنا سمعنا إنه يعني أدرس قرينا يسقى يوحي بحاس ويبدأنا حتى بلاتفورم كي شرط كم سمعيه it's hard إن أنا عاجز شيء it's very hard so حتى سمعنا سأله بحني الله ياشا ضد بارك كومنتيجا محاكم دعيده هيا كومنتيجا وحكب بحين كرايا كومنت تتك سبسكرايبرز كا subscribe haddaad tahay oo aad meesha kore ku dhufatid oo aad subscribe noqotid 1 bil 3 bilood 4 bilood 10 bilood whatever aad subscribe barnaamijkaygu noqotid comment waad bixin kartaa haddii aad subscribe bixin karaynin waa daalan tahay oo ku salaamaya okay soo dhawaada oo barnaamijka share garay follow samay like samay magacaygu xaliye barnaamijka daawanaysid waa fikrada xaliye ujeedka barnaamijkan okay including hatta ninkan hadda ka hadlay muuqaalka sameeyay waa wacyigelin waxbarasho iyo baraarujin waxaan rabnaa ninkan ardayda inuu ka mid noqdo maadaama waxyaabahan aaminsan yahay natiijana uusan ku helaynin so waxaan rabnaa inuu ardayda ka mid noqdo shaxda fahmo sharciyada raggana fahmo muhiimadooda okay so aan bilowna barnaamijka maxaa la dhihi jiray sida ugu dhaqsaha badan oo barnaamijka bilaabaya mawduuca barnaamijka waxa waaye maxay yihiin farqiga u dhaxeeya sida loo qiimeeyo naagaha iyo sida loo qiimeeyo ragga nin ahaanse saameyn intee leeg bay ku leedahay sida aad u eg tahay adigu sida aad u eg tahay physically sida lagu qiimeeyo ama sida ay naaguhu ku arkaan ama sida adduunyadu ay ku aragto mawduucaas ayaa bilaabaya sida ugu dhaqsaha badan barnaamijka share garay follow sameey like na sameey magacaygu waa xaliye barnaamijka daawanaysidna waa fikrada xaliye si kale haddaan kugu dhigo magacaygu waa xaliye waxaan ninka ugu saameynta badan Soomaalida hadda nool kuma dhihin ninka ugu caansan waayo nin noocan oo kale daalanba waa la yaqaan hadda in lagu yaqaano it's not an issue it's not a problem brother anytime baa magacaaga la baran karaya laakiin maxaa lagugu bartay waay maxaa lagugu bartay waay okay and mawduuca barnaamijka si aan u bilaabo waxaan u baahanahay ugu yaraan 5 nin oo gadaasheeda soo fadhiista oo qosla wax faniya aan dhaho mise wax faniya ayaan dhihin in lay qoslaan rabaa please in lay qoslaan rabaa sida ugu dhaqsaha badan okay barnaamijka share garay follow samay like samay magacaygu waa xaliye barnaamijka daawanaysidna waa fikrada xaliye okay Aziz Derek waa ku jeeda brother big up to you dhamaan la baxan ilaa subscribe ka barnaamijka saaraya all of you big up to you brother rag adag baa tihiin hawsha socoto ujeedka barnaamijkan waa in la baxan ilaa wax lagu baro wacyigelin aan samayno baraarujina aan samayno haddii kale ragga daalanay habruhu xataa ay u gambiyeen baa bilaabaya inay ragga wax u sheegaan haddaad wax sheegaysidna waa inaad tahay tusaale nool oo waxa uu sheegayo ka turjumaya
xasuusa mar kasta ujeedka barnaamijka waxaa waaye wax kastoo aan sheego wax khalada iyo wax saxa iyo wax faniya iyo waxaan fani ahayn in lay qoslaan rabaa biliis waa strategy cusub waaye waa iga dambaysa aniga strategigaas barnaamijka sheergareeya oo hawshaa socota oo I like maxaa la jiray Burna Boy albumkiisa cusub baa Burna Boy soo saaraya caadi maaha barnaamijka sheergareeya so intaas ha noqoto tusaaleyntii laakiin mawduuca barnaamijka weli waaye likeskaa socdaan 300 oo kun aan gaadhno oo 300 oo kun aan gaadhno oo maxaa la dhahaa likesa sida ugu dhaqsaha badan likeska okay likeskaa socdaan sida caadiga ahayd ragga subscribe ka saaraya comment waad bixin kartaan waxaad ka mid tihiin xerta maxaa la dhihi jiray loo ogol yahay barnaamijkeena comment ka bixiyaan arrinta kale aan rabay inaan maxaa la dhihi jiray inaan isla fahnana waxaa waaye sidee u difaaci kartaa oo aad dhihi kartaa naagahan afhayeen u ahay adoo naagihii ay kuu gambinayaan sidee u difaaci kartaa oo aad dhihi kartaa oo ninkaa naagu ka hadlay bat adiga naag ma tihid aan isla fahano ma xuma inaan naagaha ka hadlo laakiin adiga naag ma tihid okay so waan fahmi lahay ninka odayga wuxuu dhahay fadhi ku dirir 252 wuxuu dhahay awow meesha jilciso iyo big forehead baa insecurity laga qabaa yes niyow dhegaysta niyow sidaad u eg tahay adigu maa dalbanin sidaad nin ahaan u eg tahay adigu maa dalbanin nin ahaanna adduunyada siday ku aragto laguguma qiimeeyo sida aad u eg tahay waan kuugu celinayaa meel ku qoro waad iskhaldaysaa okay waad iskhaldaysaa brother nin ahaan sida lagugu qiimeeyo kuma xidhna sida aad u eg tahay tusaale waxa uu ah ninkan cabsida ka qaba tintiisa haddana u maleeya inuu maxaa la dhihi jiray wax samaynayo okay ninku dhahaya ninkan uu fool xun yahay aniga waa quruxsanahay hey brother ma lagu wasaa ma lagu cunaa adigase halkee lagu geynaya yaa rabtaa inay ku imaadaan saasay tahayna quruxdii waxba waad ku weyday aawa quruxdii maxay u shaqayn weyday marka qofti kuu gambisay okay waa kala labo inaad naag adiga sooy ku dhahdid iyo naagta inay kuu gambiso aan isla fahano okay aan isla fahano wax la dhahaa ma jirto anaa furay hadday kuu gambisay iyadaa kugu qasbaysa inaad furtid you get it yes arrinta kalena waxaa waaye waxaad rabtaa inaad nin ka hadashid fikradihiisa iyo waxa uu aaminsan yahay barnaamijyadiisa iyo qaabka u hadlay waxyaabahaas sidee ku dhici karaysaa inaad ka bilowdid sidaad u eg tahay ma arkaysid waxyaha madaxa dheer leh iga aamus waryaa waad madaxa dheer tahay adi maxalliye laakiin ninka ugu saamaynta badan baan ahay ninka maalkin madaxiisu leeyahay ninka bidaar buu leeyahay laakiin ninka ugu saamaynta badan baan ahay laakiin xaafad kastoo soomaali leedahay waa laga yaqaanaa saamaynteeduna way caddahay iyo ragga soomaalida saan u bedelayo oo ninkan awkiyaalihiisa maarkin laakiin awkiyaalayaashii qoraxda loogu talagalay habeen qabtaa adigu miyaadan is arkin brother bilaahi calayka ma jeclinaan nin siduu eegyahay aan ka falanqooda absolutely I don't like it brother